nagahaso saddex iyo toban video aan duubay laba naagood waa friends way iswacaan mid markay soo gashay kale iswacdaa guruubay xitaa ku jireen baan uga guuri ilma fataali baa watiin videoyadayda ku noqonaya wallaahi oo bilaahi oo tallaahi kaan caayo inaanay dhalayn. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خارج هذا المكتب أدية كشفتنا أديات من السنة ولكن على الجامعة مرة بعدين مقال رسوب أديات بعض ما صدق توجه الفيديو هذا تاي صاحبنا اللي جوجا أديات من كلام علينا هذا تاي صاحبنا وصوب بيري كان كسب سكريب تسار أديات من السلامية ملك استاد فيديو كشفتين إن شاء الله بإذن الله الكريم. إن وطبعا طبعا كذا وحويان إن برشدين الوعد شيء والله bulshadana waxaad arkaysaa bulshadana wax ku badan karbaash qof ay arkayaan ama wax ka qaldan yihiin ama manahayeen dhibaato haysato usha loo si dheereynaya war qofka bini'aadmiga wuxuu u baahan yahay in xoogaa jaanisa la siiyo wixii qalad uu sameeyo aan mar walba macnaha dabada looga dhigin marka maanta waxaan eegi doonaa insha Allah bismillaahir kariim gabadh Soomaaliyeed oo maalmahanba ilaa shalay maanta xoogaa aad loo waday gabadhaasan marka eegi doonaa maxaa qaldan iyo waxyaabahan dhibaatada gabadhan ku haya inagu waxaan ka oranayno insha Allah gadaal baan ka sheegi doonaa laakiin marka hore bal videoga aan eegno insha Allah. waxaad aragteen waa gabadhan waa gabadh Soomaaliyeed oo hooyo Soomaaliyeed inagu mar walba waxaan nahay qof dad bulshada inta wanaagsan u ka sheega inagu ma jecelin macnaha qaladaad iyo dumarkan kale la hadlaso macnaha inaan la hadlano ujeedkeenu intaas maaha waayo inagu ma yihiin dad dumar macnaha systemkooda gala laakiin kaliya waxaan ka hadlanaa gabadhan aan ku koobnaanana gabadhan horta cid ay ka caawinayso waa dad qeyrkeeda inagu kuwaasi shuqul kuma leh laakiin bulshadeena xaqasata maanta markaa xogaa inaan la hadlan rabaa gabadhani waxay ka caawinaysaa bulsho waxay ka caawinaysaa dad horta gabadhan waa geesiyad wallahi xaqiiqatan waa gabadh geesiyada laakiin bulshadeenani dad noocan oo kale markay soo baxaan waxoogaa qaladaad baa yimaada dadku qalad bay ka fahmaan way dhagax tuuriyaan dhinacyada kameraankan waa sidan qofku markaa waxoogaa u yar fogaanaya gabadhan waa hooyo Soomaaliyeed wax xoogaa qalad ha jiro laakiin waa hooyo Soomaaliyeed waa gabadh Soomaaliyeed waxay u baahan tahay maskax degan iyo hadal wanaagsan bay u baahan tahay uma baahna macnaha inaan dabada ka sii riixno xoogaa waxaad moodaa inay waa taa dagaal life ay gashay inuu laakiin dumarku booto weyna waree anaa markaa si u booteynayay laakiin waa kulle qofku binaadmigu markuu wax dareemo itaalkiisu uu samayn karaa waa intaasuun imika Soomaalidu waxay baratay goolaftankiyo gacantii way iska daayeen ay iskula soo ordayeen imika goolaftanka faraha badan la arkaysaa laba maanta oo dhan baa saar isku jiidaya social media wala sireenaya baritika maalin wax la siriyay labadii gacmaha haystaa la arkaya macnaha waa iska xogaa ilbaxnimada xitaa ka mid tahay in dadku noocan noqdaan laakiin bulshadeena ma qurux badna xaqiiqatan in qof dabada ka riixno waxaan u baahanahay qofku in la dajiyo si wanaagsan loola hadlo wanaag qofku wuxuu ku leeyahay geesi baan geesi baa tahay qof wanaagsan baa tahay in xagga wanaaga loola kaco
laakiin xagga adag inaan ka istaagnaa xaqiiqatan ma qurux badna bal waan sii eegi doonaa waa gabadh Soomaaliyeed wataas cadeysay anu waxaan ahay tiri waa gabadh Soomaaliyeed geesiyad baan ahay xawataaka aan tiri xawataako xaqiiqatan dumarka Soomaaliyeed waa dumar wanaagsan laakiin wax waa qaldami karaan qalaadna uu dhici karaa gabadhan waxyaabahan iyo kulalka faraha badan leh hadallada waxay ka keentay waxa ku dhacay family problem that's why bay macnaha kulalka faraha badan loo keentay waana iska dhacdaa wax iska dhaca laakiin bulshadana wax ku goorinaya bal gabadha xogaa wadwadka faraha badan laga daayo inta wanaagsan la soo qoro commentiyada markaad akhrido qaar fara badan oo qaldan baad arkaysaa xaqiiqatan iyadana ay ka hadlaysaa ma qurux badna waxa wanaagsan inaan bulshadana inaan noqono dad inta wanaagsan inta badan ka hadla marka aanu xaqiiqatan waxaan jecelahay gabadhaas insha Allah waa hooyo Soomaaliyeed qurux baa la doonayaa sharaf baa la doonayaa hooyo Soomaaliyeed iyo gabadh Soomaaliyeed iyo cid wax Soomaali ka abtirsada marnaba xumaantiisa ma jeclin dumar fara badan baad aragteen oo social media inaga jira deetana markii hore soo galeen waxoogaa bay ku soo galeen iyagoo xaaladdu iska degan tahay markii la arkay xoogaa qaladaad inuu ku jiro waxa loo qaatay karbaashka sidii loo waday khadka laga saaray marxalado fara badan baa maxaan ku dhahday muhammad tusaale ahaan imiga dhulkeen oo kale ama qof baad arkaysaa xoogaa yar xanuunsanaya bulshadu ka dhex muuqanaya xoogaa kiyarkaaba waxba ku tuuraya ciyaalka xitaa ku fooriyaya dhagax bay ku tuurayaan saasay odhanayaan qofkaas hadda marka hore iska roora sidii saa loo waday bulshada markuu leeyahay waxa leeyahay arwaa kii xanuunsanay arwaa kii sana arkan ma jire waa se loo dhagax tuuraynayo maalinta waxaa arkaysaa isagoo maxaan ku dhahdaa guda meelaha macnaha qashinka lagu tuura jeefa bulshadii ka dhex baxay xaaladiisa caafimaad bedeshay meeshii ka baxay social media isla sidin waay waa isagoo casriyeysan qofku markuu xogaa soo galo ee lagu arko qaladaad dab baa lagu shadaya waxaan ay tiri waxaanuu yiri waa waalan yahay waa warka saa loo wado marka dambe qofkii shooya isagaaba maxaan iska shakeeya sidoo kulma maalin buu isleeyahay qof iska difaac qof iska adkee marka dambe wuxuu galayaa xaaladii ahayn uu ka duwanaanayaa nabur baa markaa lagu dhufanayaa bulshadii baa la dhex saarayaa isaguna uu sii foonaya khaasatan dumarku waa ka jilicsan yihiin ragga la mid maaha waxay u baahan yihiin ilaalin fara badan iyo inay waxoogaa laga dhowro maskaxdooda qalad waa ka iman karaa laakiin in la saxaa qurux badan marka dee waana gabadhan horta waa gabadh aad cod karaba xaqiiqatan oo gabadh waxoogaa warunteeda doqniba kama muuqato iyadana waxaa leedahay waxoogaa kuleylka yar deji insha allah bulshadeenana iyaduun maaha qof kasta oo waxoogaa la arko inuu social media si yaro kulul kusoo galay waana xaaladiisa la dejiyaa waa in lasii riixin si aan u fogaan hadduu fogaado magaceennii u sitaa diinteennii u sitaa dhaqankeennii u sitaa jinsiyadeennii u sitaa hooyo weyn ama waa aabo ama walaal ama waa inan intuba inagunbay naga timiday waa wax recordka inoo geliyun bulshadeenna qayb qaldan oo kasoo baxday marka waxa qurux badan inagu inta xagga quruxdan ka istaagno qofka intaan soo celin karno in la soo celiyo laakiin aan la sii riixin oo macnaha meeshii uu taagnaa aan laga sii riixin xaqiiqatan dib loo soo celiyo haddii la sii riixo laakiin waad aragteen qaar fara badan inaga naga mid ah ama rabo magacayntooda inaan sheego waayo wax dee dano iga soo galisaan jirinba laakiin qofkii dhow waa inaan si wanaagsan la hadlaa marka gabadhan anagu
waxaan leenahay walaashay gabadh wanaagsan baa tahay maasha allah gabadh qurux badan oo soomaaliyeed oo hooyo fanaanado abwaanado xaawataa kaa tahay laakiin xad waxoogaa yar samee waxoogaa xaydxaydjina feerkan lifekaan iska daa waan kuu ducaynaynaa waxoogaa caadifadaadan hoos u deji wixii haystiinina si qurux badan u dhamaystaa dadkana waxaan leenahay waxoogaa bal dhagax tuurka ka daaya ummadda soomaaliyeed meel kasta adduunyada ka joogaan aad iyo aad baan idin salaamaya walaalkan cali jaamac barnaamijkan sheer gareya insha allah bidmillahi kariim like sheertana saara commentina waa dhinaciina ciddii awoodana hadda subscribe noo saartiin alxamdulilah aad iyo aad baan idin salaamaya meel kasta adduunyada ka joogtiin madaxweyne